waa qiso run ah oo si dhab ah u dhacday. waxaa safar wada galay dad badan. habeenkii in badan markay guurayeen ayaa waxa ay yimaadeen tog wada duur ah. waxa ay damceen inay seexdaan iyagoo isku diyaarinaya hurdadii ayaa waxaa dul yimid libaax. dadkii markii ay arkeen libaaxa way wada boodeen oo carareen, laakiin mid ka mid ah oo salaad tukanayay ayaan boodin. salaadiisii ayuu sii watay. libaaxii ayaa dul yimid oo u soo dhowaaday, ma dhaqaaqin oo salaadii ayuu iska sii watay. libaaxii ayaa ku dul wareegay ninkii. wax yar kadib libaaxii wuu iska kala wareegay oo iska tegay. dadkii la socday ayaa naxay oo argagaxay. qaarkoodna dhulka ayay isla dhaceen iyagoo leh, miyaad waalan tahay? naftaadii miyaad nacday? wuxuu ku yidhi, dadkii ilaahay ayaan ku dhaartee waxaan dareemay xishood. waxaan ka xishooday anigoo alle hortiis taagan inaan ka cabsado makhluuquu alle subxaana wa tacaala abuuray. noloshu waa imtixaan. waxaa ugu fiican islaamka, cibaadaduna waa waajib. adduunkana waa habaas, aakhirana waa nasasho. ilaahay marka hore adeec, guushna way ku xigtaaye. haddii adduunyadu ay ahaan lahayn goob imtixaana, adduunka lagama buuxiyeen xanuun iyo wasakh. haddii ayna noloshu silac iyo dhibaato jirin, nebi maxamed calayhi salaam ayaa ku raaxaysan lahaa adduunkan. markasta ha iloobin inaad alxamdulilaah dhahdo. ha fiirin waxaa hadda kugu dhacaya. noloshaada iyo dhibaatooyinka kugu soo wajahan, ilaahay ayaa kula jira. uu ku arkaa, haddana uu ku maqlaa. fiiri cirka iyo koomka allah sameeyey. ilaahay wuxuu kaaga dhow yahay sida aad hadda u malaynayso. haddii hadda aad tahay dhibane, ogow inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuugu martiqaaday ducooyin iyo samir uu ku aqbali doono. aqbal martiqaadka alle subxaana wa tacaala ee quruxda badan. waxay ku hogaamin doontaa albaabada jannada kaa doonto inaad ka gasho. xusuusnow inay dhibaato imaan doonto, laakiin ay dhammaanayso. ha ka quusan rabbigaaga, hana iloobin inaad dhahdo allahu akbar. fadlan la wadaag walaalahaaga si naxariis leh. adigana ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa abaalmariyo. haddaad sheer dhahdo inaad cilmi faafisaa, waa sadaqo jaari ah. insha allah waad ku liibaanaysaa walaal.